بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga IT-ga ama information technology ee ku baxlo qadafka Soomaaliga magacaygu Cabdinaas Ismaaciil emailka sida caadad ah info@sologroups.com waa request a lesson 10 ama 10 ay soo weydiiyaan qaar kamid ah ardayda wax ka barata shabakada sologroups.com waa how to create a portable application sida loo sameeyaa application oo la qaadan karo portable waxa la yiraahdo luqadda Ingiriiska waxyaabaha ku raacay la qaadan karo software-da qaarkood systemka ayaa lagu duubaa meesha ay joogaan laakiin tan waa la tagi kartaa adigoon ku duubin registry wax gelin system ku duubin ayaad isticmaali kartaa waxaan loo isticmaali karaa software walba ayaa lagu samayn karaa marka waxaanu isticmaalaynaa laba software kaasoo ah VMware ThinUp Enterprise 5.1 oo hadda ka hor 10 aan kaga sameynay laakiin ardaydu ay soo weydiiyeen si aan mar labaad u sameyno iyo waxaan isticmaalno Cameo virtualization virtual haddii aan maqashid waxa lagu fasiraa inta ugu dhow waa wax aan jirin isla markaana jira sida virtual PC aan isticmaalno virtual online wax la yiraahdo oo mar walba dadka isticmaalaan virtual waa wax kala dheer oo aan jirin isla markaana la isticmaali karo marka labada software aan ku sameyn doono waa VMware Workstation oo virtual workstation number 10 oo versionka ugu dambeeya xilliga aan sameeyna 10kan iyo Cameo virtualization waxaan ku sameyn doonaa Internet Download Manager 6.21 oo versionka ugu dambeeya isla markaana softwareka ugu muhiimsan ee lagu isticmaalo sida xilliga downloadka la sameeyo si xawaaraha loo kordhiyo marka virtualization ayaan sameynaynaa waana 10 aad u fudud software walba lagu sameyn karaa waxa halkan yaala ThinUp ayaan ku bilaabaynaa Cameo waa kan waa ka dambeyn doonaa kan marka ugu horeyn waxaan furaan ku duubay softwareka tabcan isagoo full version ah shabakada ayaad kala bixi kartaan waan ku duubay markii aan ku duubay waxa soo baxaya wajiga hore ee shabakada ayaa saan soo baxaya softwareka kaasoo ah ThinUp VMware waxa ku yaala wizardkan wizard waxa la yiraahdaa waxyaalaha next accept la yiraahdo wizard ayaa la yiraahdaa wuxuu ku sheegay qaabka ugu fudan ee lagu sameeyo virtual application marka waxa jira pre-scan pre waa waxa ka horeeya postna waxa ka dambeeya luqadda Ingiriiska ka horeyn ka dambeyn marka kan wuxuu sameeyaa baseline systemka ayuu ku qaadaa installation ayaa sameynaysa kadibna postkan ayaa ku sameynaysa waa isku dubridaysa configuration kadibna waad dhisaysa marka waxaan leeyahay next ugu horeyn what is a pre-scan waa maxay marka ayuu ku sheegay pre-scan wuxuu sawirayaa ama capture ku qabanayaa qaabka ugu horeeya ee hard drive-kaaga iyo registry-ga iyo file-asha ku jira isagoo u sameynaya environment ama nooc systemka lagu yaqaano sawir ah marka use a clean Windows system waxa muhiim ah xilliga aad doonaysid inaad sameysid portable waa in aad isticmaashaa window nadiif ah ama clean ah macnaheedu waxay tahay intii aad isticmaali lahayd systemka ama laptopka adiga aad isticmaashid waa inaad isticmaashaa virtual sidaan oo kale ah hadda tusaale ahaan Windows 7 ayaan isticmaalnaa waana nadiif wax kale kuma jiraan sababtuna waxaa loo yeelay a clean window ama window nadiif ah wax kale aan ku duubnayn kuma jiraan software aad u fara badan oo aan ka ahayn operating systemka ah Windowga iyo waxyaalaha kale loo baahan yahay marka VMware-ka mar walba wuxuu kula talinayaa in installationka virtualka xilliga sameynaysid machine-kaaga aad ku isticmaashid virtual workstation oo ah kan hadaan isticmaalayno marka waa maxay sababta loo isticmaalayo Windows system your application installer might skip installationka wuxuu skip waxa la yiraahdaa ka boodaya file-asha registry-ga oo ku sii jira systemkaaga taasoo kaga hortagayo in system uu shaqeyn kari waayo tusaale ahaan systemka caadiga aad u isticmaashid waxa ku jira dhowr boqol software ayaa ku jira virus inuu ku jira ayaa laga yaabaa marka waxa laga yaabaa haddii aad u isticmaashid inuu dhaco marka waxa muhiim ah isticmaal mar walba VMware kan oo kale isticmaal oo software kan oo ku jira shabakada kadib advanced scan location ka tabcan waa C kaliya HK local machine HK users HK current user ayaan scan ku sameynaa waxaan leenahay pre-scan ku sameey marka wuxuu sameynayaa sawir ayuu ka qaadayaa systemka kaasoo ah qaabka hadda uu yahay inta aanan ku duubin waa pre-scan inta aan waxba lagu sameyn marka waxay ku xiran tahay processka iyo memoryga computerkaaga ayay ku xiran tahay waxa laga yaabaa inuu qaato daqiiqad ilaa iyo 10 daqiiqo marka wax kale lama sameeyo
halkan internet ku isticmaalin VMware-kan dhexdiisa application kala furin sidan ayaa ku daynaysa wuxuu leeyahay this process shaqadan waxa laga yaabaa inay qaadato daqiiqad waxay mar walba ku xiran tahay qaabka uu yahay computerkaaga taasoo macnaheedu ay tahay haddii memoryga virtualku uu yar yahay waqti badan ayuu qaadanaya processka marka locationkii saa ku aragtaan iyo scanning ku samaynaya markii uu scanninga uu dhammeeyo tabcan anagana waa la soo laabanaynaa si aan casharkii meesha uga sii wadno sidaan ku aragno 2 daqiiqo kadib wuxuu yimid halkan wuxuu leeyahay install the application now iminka waxaanu ku duubaynaa applicationkii ama softwarekii aan dooninay in aan ka dhigno qaab portable ah marka waxaa muhiim ah inaad eegtid halkan haddii ku duubaha oo ah softwarekan ku duubi doono uu u baahan yahay inuu isa soo shido computerka ayaa laga hadlayaa xilliga ku duubitaanka waa inaad samaysaa setup capture-ka oo ah kan wuxuu bilaabayaa shaqadiisa xilliga uu isa soo shido macnaheedu waxay tahay softwareada intooda badan qaabka loo dhisay ay ku xiran tahay waxaa laga yaabaa in ay ku yiraahdaan xilliga uu ku dhamaado restart ku sameeyo computerka ama soo shid ay ku yiraahdo marka softwarekan wuxuu ku leeyahay waxba dhib male ku sameeyo ku leeyahay softwareka markuu soo laabto isla meeshii ay ka bilaabaysaa kaasna aad ayuu muhiim yahay sababtoo ah lama doonayo inaad istiraahdo haddii restart aan ku sameeyo wixii aan sameeyey way iga tegayaan marka waanu sameynay iminka anaga wax kala sameyn waxaan leenahay minimize xirinka softwareka ayaan aadaya iminka halkan ayuu yaala softwareka 2 jeer ayaan riixayaa sidii caadada ahayd ayaan ugu duubaya softwareka loogu duubo iyadoo wax kale aan sameyn marka kan waa versionka ugu dambeeya workstation oo virtual lagu sameeyo oo ah runtii aan dhihi karo waa softwareda ugu muhiimsan ee ku jira solargroups.com sababtoo ah network haddii aad doonaysid tijaabo haddii aadan doonayn systemkaaga inuu soo galo virus kan ayaad waxaad u isticmaalaysaa noocii aad u isticmaalaysaa kadib waxaanu samayn doonaa markii aan ku duubno waxaanu gelin doonaa furaha ayaanu gelin doonaa tabcan furaha xilliga la geliyo kan waad ka saaraysaa check for product updates next iyo help kan waad ka saaraysaa next ayaad leedahay desktop ayaan ku dhaafaynaa next ayaan leedahay next marka xilliga aan sawirkan gelino xilligaan gelin doono furaha waanu qarin doonaa sababtoo ah videogan qaar ka mid ah waxay galaan solo groups waxay galaan dhanka YouTube marka looguma talagelin waxaa kaliya loogu talagalay full version ah isagoo ah in ay isticmaalaan ardayda wax ka barata solargroups.com marka saa ku aragtaan wuxuu wadaa kuduubistii ayuu wadaa marka waan yara sugaynaa ilaa uu ka gaaro meesha ugu dambeyso oo ah in furaha la geliyo furaha xilliga la geliyo kadibna wuxuu sameynayaa in installationkii meesha uu kasii wado sidaa ku aragtaan kuduubistii way dhammaatay waxaan leeyahay finish ayaan leeyahay dabcan furihii waan gelinay isagoo qarsan kadib markii uu ku dhammaado kuduubista waxaad ku laabanaysaa isla softwarekii setup capture wuxuu ahaa kii hore pre-installation iminka waxaanu leenahay post scan ayaan leenahay scan ayaan ku sameynaynaa isagoo softwarekii lagu duubay iminka ka eegaya wuxuu leeyahay post scanninka wuxuu sameynayaa ama sawir ka qaadayaa isagoo eegaya registryga faalash ku jirta computerka systemka iyo wixii isbedelay xilligii lagu duubay softwareka kanna waxaa laga yaabaa in uu qaato ilaa iyo 5 ilaa iyo 10 daqiiqo mar walba waa la sugaa ilaa uu ka dhameeyo markuu dhameeyana waa la soo laaban doonaa 5 daqiiqo kadib wuxuu yimid halkan oo ah meeshii loogu talagalay wuxuu soo qabtay VMware Workstation oo yaala directoryga temporary-ga ah hoosiyaad wax kale uma baahnid kan uu ku xulay kaliya ayaad xulaysaa kadib waxaad leedahay next ayaad leedahay wax ka bedelay maysid next ayaad leedahay everyone ayaad u dhaafaysaa haddii aad doonaysid ama systemka aad u isticmaalaysid uu yahay server waxaad dhihi kartaa only following active directory halkan ayaad kaga daraysaa waxaana halkan ku qoraysaa haddii uu isku dayo qof kale inuu isticmaalo access denied looma ogola inuu bedeli karo laakiin uma baahnin everyone ayaan leenahay next ayaan leenahay full write access restriction uma baahnin haddii aad doonaysid in USB aad ku qaadid softwareka adiga aad leedahay oo aadan doonayn qof kale inuu isticmaalo ka bedelidda qoridda wax kale in laga bedelo halkan ayaad riixaysaa laakiin kan ayaan ku dhaafaynaa next ayaan leenahay profileka wuxuu tagaya update inta badan systemada disable ayuu ka yahay saa awgeeda same directory ayaan tegaynaa halkan USB ayuu gelinayaa kadib waxaan leenahay next ayaan leenahay waxaad leedahay no do not send any information to VMware next ayaad leedahay kadib magacii ayaan halkan ku daraya kaasoo ah 10
waxaan xusuus mudan softwareka xilliga la isticmaalayo waxaa halkan hoose ee shaashada ka soo baxaya magacaaga oo ah magaca computerka xilliga la sameynayay lagu soo geliyay tusaale ahaan haddii cabdi uu yahay cabdi ayaa soo baxaya caasha hadday tahay caasha ayaa soo baxaya iminka waxaa soo baxaya solo groups oo ah magaca computerkan halkan ayuu geliyaa project location waxbaa bedelin halkan ku dhaaf halkan ayuu ku fiican yahay marka dambe isaga ayaa isfuraya laga soo qaadaya next ayaad leedahay wuxuu leeyahay project location already exist ku horayaan ku sameynay waxaan leenahay override ku sameeyaan leenahay kadibna wuxuu noqonayaa sidan VMware Workstation 10.dat ayuu noqonayaa halkan ayuu gelayaa safe ayaan leeyahay marka intaan safe dhihin waxaan u baahanahay inaan ka dhigo compress inaan ka dhigo package-ka in uu sii yaraado size-ka ama cabirka uu sii yaraado gigabyte badan aan noqon halkan ay riixaysaa safe ayaad leedahay kadibna wuxuu kaydinayaa project ayuu kaydinayaa marka waxaa laga yaabaa inuu qaato ilaa iyo 5 daqiiqo ilaa iyo 10 daqiiqo waad sugaysaa wax kale ha isticmaalin markuu soo laabtana insha allah waa la soo laabanaynaa iminka waxaan soo gaarnay meeshii ugu dambeysay wuxuu ku siinayaa xogaa warning ayuu ku siinayaa uu ku leeyahay kernel qaarkood laguma aan duubin laakiin wax dhibaata haba yaraatee ma jirto muhiimadda weyn waxay tahay in ku duubitaankii muhiimka uu dhacay next ayaad leedahay kadib waxaan leenahay in aan dhisno markan waa meesha ugu muhiimsan iminka haddii aad doonaysid packageka editing ayaa ku samayn karta ini contains parameter configured captured marka uma baahnid waxba ha furin waxba ha samayn waxaad leedahay build ama dhis ayaad leedahay halkan ayuu kusoo bilaabanaya marka waxaad aragtaa in uu additional ama addin uu ku darayo wixii loo baahnaa ee kuu samayn lahaa VMware-ka kuu samayn lahaa isagoo portable ayuu ku darayaa marka application waa la qaadan kara laakiin tabcan waa in uu isla socda gebi ahaantiisa halkan waxaan ku aragnaa kan aad ayuu muhiim yahay ha ka saarin kan siis ha ahaado sababta wuxuu kuu furayaa folderka projectiga aan ku sameynay executable-ka ah waa exe ayuu ka yimid executable haddii aragtid xilliga aad dhamaysid aad tirahdid finish kan wuxuu qaadanayaa 3 daqiiqo kadibna waan kusoo laabanaa markuu dhammeeyo waan furaynaa kadibna insha allah tijaabo ayaan ku sameynaynaa okay waa dhammaaday saa ku aragtaan dhammaan faalashii copy ayuu ku sameeyey haddii aad aragtid success macnaheeda waxay tahay wax walba sidii loogu talagalay inuu shaqeeyey marka success VMware Workstation exe size-ka cabirka wuxuu noqday 413 kilobytes ayuu noqday laakiin kan waa applicationka portable-ka ah kan kale tabcan waa in la socda si uu shaqeeyo build complete marka iminka finish diyan yiraahdo wuxuu furayaa kan finish ayaan leeyahay uu furaysaa ku aragtaan faalashan ayaa soo gal marka faalashan ayaa la doonayaa in aad ku qaadid USB ama DVD ama CD ama network nooca u doonaysa isticmaasho ku dubid marka tabcan uma baahna marka waxaad leedahay kaliya kan ayaad double click aad leedahay isla markii waxaad aragtaa license to solo groups inuu soo baxay magacaaga halkan ayuu ka soo bixi karaa marka kan ayaanu isticmaalinaa systemka automatic halkan ayuu ka soo baxaya magacaaga haddii halkan aad ka bedeshid oo wax kale aad u bedeshid tabcan kan ayaa isbedelaya oo kusoo baxaya mar walba marka laba jeer ayaan riixay iminka waa soo socdaa sababto oo waa virtual PC lagu sii dhex furay waana kan san ayuu kusoo baxaya ujeedaan waa full version haddii aan yidhaahdo about ujeedaa waa licensed unlimited expiration male memorygiisana waa kan ayuu noqonaya mar labaad ayaan ku laabanayaa marka haddii aan yidhaahdo kan laba jeer aan riixo hoostan indhaha ku qabo laba jeer ayaan riixaya aad ujeeda license solo groups waana saa ku aragteen portable si automatic ayuu soo baxaya marka laba jeer riixin halka mar kaliya riix si uu u soo baxo isla markaana horaad uga isticmaashid marka kan waa inuu la socdaa tabcan horaad ka isticmaali kartaa haddii aad tirahdid create aad tirahdid isla markii wuxuu kuu sameynaya sidii caadad aan ku naqaanay marka kuwan waa inaad isla qaadaa kan keligiisa ma shaqeynaya haddii meel kale aad geyso sababtoo ah applicationka u dhex dhisnaa waa kan DAT-ga kan dhammaan isaan ayaa loo qaadaya waa lagu shubayaa waxaad ku qoraysaa VMware Workstation portable aad ku qoraysaa saas ayuu u shaqeeyaa marka kaas waa mid kan labaad waa kan Cameo oo runtii aad muhiim u isagana laba jeer ayaan riixayaa software-ka saan ayuu soo baxaya marka ku duubis uma baahna isaga ayaa wuxuu yahay portable ah uma baahna marka wuxuu ku leeyahay capture installation isla principle-ka ama qaabka uu shaqeeya iyo edit marka capture-ka intaan wax kala sameyn waxaan leeyahay capture ayaan leeyahay wuxuu sawir ka qaadayaa post pre-ga ayuu ka qaadayaa oo leeyahay waxaan doonayaa inaan sawiro systemka inta aanan ku duubin waxa la doonayo markuu ku dhameeyana tabcan wuxuu ku leeyahay ku duubeysi marka waxaad aragtaa take initial system snapshot before installation wuxuu qaadayaa sawirka ama sawirada systemka inta aan waxba lagu duubin uuna wareegayaa marka waad sugaysaa waxaa la yidhahdaa package ayaa la yidhahdaa isaga ayaa ku duubaya kan
markii uu ku sameeyo waxaanu samayn doonaa isla markii internet download manager ayaan waxaan ku samayn doonaa versionkii ugu dambeeyey isagoo portable ayaan ku samayn doonaa. marka labadan software iyo softwareda aan ku samaynay tabcan haddii aad tahay member solargroups.com si full version ah ayaad download uga samayn kartaa. marka waxaad sugaysaa ilaa uu ka dhameeyo initial system snapshot ilaa uu ka dhameeyo. markii uu dhameeyana dhinaca kale ayaan aadaynaa oo ah installation ayaan samaynaa. tabcan qof walba waa yaqaana sida loogu duubo internet download manager. casharkan aan ku arkayna qaabka loogu duubo ah sida ugu fudud oo loo raaco. mar walbana waa isbedelaa. mararka qaarkood waxaa lagu sameeyaa batch, mararka qaarkood furo ayaa lagu sameeyaa. laakiin waxaa xusuus mudan xilliga lagu sameynayo thin up iyo kan wax isbedel ah haba yaraatee ku samayn maayo systemka haddii portable la sameeyo. sababtoo ah wuxuu u baahan yahay keliya wixii lagu duubay registrationka ah wuu qaadayaa, sawir unbuu ka qaadayaa. hadda ku duubista kor ayuu sameynaya, kadibna wuxuu sameynayaa xilliga lagu duubay ayuu sameynayaa. sidaan ku aragno waa dhameeyey. install ayuu ku leeyahay iminka softwareka you wish to package. when installation is done, click installation done. if installation is required, reboot, simply reboot. isla qaabka ayuu u shaqeeyaa marka, kaasoo ah iminka markuu dhameeyey softwareka internet download manager waa inaan ku duubnaa. wuuna duubaya saa ku aragtaan. markuu ku dhammaado wuxuu ku leeyahay waxaad leedahay keli installation done. hadhehin hadda haddii kale wax shaqeynaya male. haddii uu ku weydiiyo systemka xilliga ku duubista restart inuu ku sameeyo, simply restart ku sameeyo ku leeyahay. waxba dhib male, hore ayuu ka bilaabaya. marka waxaan sameynaynaa internet download manager oo ujeedaan softwareka ee akhri muhiim karaaga mar walba. kan ayaan 2 jeer riixayaa. markii aan riixo waan ku duubaya next ayaan leeyahay, next ayaan leeyahay, next wuu ku duubaya. marka qaabka u shaqeeya markaan finish idhaahdo wax yar ayaa la sugaa. internet download manager waa isa soo furayaa, wuxuu aadayaa Firefox, wuxuu aadayaa internet explorer. marka waa inaad sugtaa. okay ayaan leeyahay. marka wuu ku duubayaa. marka hore waxba lagama sameeyo sababtoo ah wuxuu leeyahay internet download manager has been registered with a fake serial. kan waa muhiim inaan aragno. marka waxaanu sameynaynaa si aan uga saarno kan intaanan ku sameynin. marka kan ayaan xirayaa, halkan ayaan tegayaa, halkan ayaad ka egeysa inuu ku jiro. markaas ayuu muhiim u yahay. halkan hadduu ku jiro wax shaqeynaya male. karaaga ayaa tegeysaa, waxaa ku jira kan ayaad soo qaadaysaa, waxaad leedahay a copy, waxaad tegeysaa c-ga ayaa tegeysaa, c programs ayaa tegeysaa, internet download manager, right click ayaad leedahay, paste ayaad leedahay. halkan override ayuu ka dhigayaa. markii uu sameeyo kan waad xiraysaa, internet download manager ayaa furaysaa. iminka waxaa soo baxaya kan. markuu soo baxo waxaad leedahay close, registrationka ayaa tegeysaa, halkan about ayaad leedahay, wuxuu ku registraysan yahay. saa ujeedid uma baahna xitaa in aad gelisid furaha. marka qaabka loogu duubo macno yeelan maayo. registrationka waa registered already, about wuu ku xiran yahay, license cabdinaan ismaaciil ayuu leeyahay. marka wax meenaha ba yaraata yeelan maayo kan. muhiimadda weyn waxay tahay markii uu ku dhammaado software walba ama internet download manager ha aad mid kala aado, waxaa leedahay install done ayaad leedahay. iminka post installation iyo kii kale oo thin upka ayuu wuxuu leeyahay post installation ayaa waxaan ka qaadaya snapshot ama sawir aan ka qaadaya. sawirka ayuu qaadaya. markii uu dhameeyo wuxuu kuu soo saarayaa isagoo kule waxaan sameeyey portableki. waad qaadi kartaa, meesha doonta ayaa la tegi kartaa, meesha doonta ayaa ku furi kartaa. mar walba aday kugu xiran tahay. laakiin intaan kaa sameynin dabcan halkan ayaan tegayaa, waxaan leeyahay right click, waxaan ka saarayaa kan lagu duubay ayaan ka saarayaa. sababtoo ah waxaan doonaynaa kan portableka in aan halkan ku isticmaalno ayaan doonaynaa. marka kan markuu dhameeyo isla markiina kusoo laabanaynaa. sidaan ku aragno daqiiqad iyo bar kadib wuxuu yidhi package successfully created. halkan ayuu soo galay, automaticna wuu soo saaray. marka waxaan doonayaa packageka haddii halkan aan idhaahdo in aan edit aan ku sameeyo, kaasoo ah inaan idhaahdo halkan ayaan tegayaa, waxaan leeyahay internet download manager. markuu sidaan usoo baxo sidaan uu yahay waxaan ka dhigaynaa 6.21. marka virtual ma baahni, waxaan leeyahay 6.21 space yar ayaa halkan gelinayaa. kadibna waxaan leeyahay portable. marka waxaa laga yaabaa in uu ku yiraahdo meel ayuu ka furan yahay, waa inaad xirtaa. marka qaarkoodna oran maayo looma baahna. marka kan waan iska xirayaa, kan ayaa halkan i yaala, kan ayaad qaadaysaa, meesha danteeda gelinaysaa. marka bal aan eegno, 2 jeer ayaan riixayaa. isla marka ugu horeeya waxaa kuu soo baxaya systemka saa geliskan ayaa kuu soo baxaya. maxaad doonaysaa ayuu ku leeyahay. waxaan doonayaa keliya always open this program, internet download manager,
okay aad leedahay wuu kuu soo baxaya internet download manager saa ku aragtid waana kan help haddii aan yidhaahdo about waxaad ku aragtaa cabdinaasir ismaaciil inuu ku jiro waan xirayaa halkan ayaan tegaya waan ka saarayaa markan haddii aad ku laabatid ku weydiin maayo wuxuu hore ku weydiiyey sababtoo ah wuuba xasuustaaba waa kan caadi ayuu soo saaray waan ka saarayaa marka haddii aan yidhahdo right click exit aan yidhaahdo aan ku laabto isla meeshii halkan aan tago indhaha ku qabo wax yar kadib halkan waxaa soo baxaya 2 jeer ayaan riixayaa in xataa lama arkayo aad u faasu yahay waxaa soo baxaya license solo groups iyo soo baxaya marka meesha doontida aad u qaadi kartaa meesha doontida ku isticmaali kartaa asana inuu shaqeynaya marka waxaan filayaa labadan cashar ee isku dhex jiray oo ah request lesson ka yimid casharada la soo weydiiyo how to create a portable application sida loo sameeyaa a software ama app la qaadan karo oo portable iyadoo aan isticmaalay VMware Thin App Enterprise 5.1 iyo Cameo Virtualization labadaba aad ka heli kartid shabakada sologroups.com waxaan portable ka dhignay saa ku aragteen VMware Workstation 10 iyo Internet Download Manager 6.21 wixii macluumaad ah ee casharkan ku saabsan casharada kale mar walba info@sologroups.com ayaad kala soo xiriiri kartaan anigoo ah macalin cabdinaasir intaa wada kulmi doona waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu